waxbarashadu daa kuma xirna waxaan nahay isku galaas waxbaan isla baranaynaa kani ma ahan macalinka fasalkan ee waa saaxiibka ardaydan oo waayaragnimadiisa la wadaagaya dhigiisa waxbarashada waana maxamed ibraahim duqow oo 63 sano jir ah wuxuu ka mid yahay ardada sanadkan ka qalin jabinaya kuliyadda culumta bulshada gaar ahaan adeega bulshada ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed runtii geediga aan u soo galay waxbarashada waxa waaye waqti dheer ay ugu qaadatay maxaa yeelay waxaan ka soo jeedaa aniga qoys beeraley ah waxbarashadeedii dugsiga hoose dhexe waxaan ku soo qaatay halkaas imtixaankaygii waxaan u imaanay tuulooyinka u imaanayeen degmada Qoryooley labadii luuliyo 1980 ayaan u fariistay imtixaankii 8 ka halkaasaan kaga baxay ka horna qorsheygu wuxuu ahaa waxbarasho inaan go'aan ku qaatay inaan Muqdisho waxbarashadeedu ku dhameysto oo tuulada ka soo tago safarkiisii Muqdisho ka hor wuxuu qorsheystay inuu yeesho xirfad uu ku maareeyo noloshiisa wadooyin dheer aan u soo maray at least waxa kama dambeys noqotay in anigoo farsamo yaqaan ah xamar imaado si waxbarashadeeda hakad igu galin noloshayda hakad igu galin cidna aanan ku tiirsanayn sidaas daraadeed farsamada harqaankan soo bartay Muqdisho markaan galayna waxbarashadeedana waa sii watay meesna waan ka shaqeynayay alxamdulillah aad baan ugu soo mooday xirfadaas waxna waa ku soo bartay noloshaydu way ku soo mooray burburka markuu dhacayna hadee familkayga qoysaskayga iyo ehelkayga waxa ayaan ku soo maareeyay ka horna waalidkay ayaan ku soo maareynayay duqow ayaa ka mid ahaa arday badan oo saameyn ku yeeshay burburkii dalka taas oo hakad gelisay hamigoodii tacliimeed tan iyo waqtigaas wuxuu ku taamayay inuu sii wato waxbarashadiisa balse duruufaha dhaqaale ee ku xirnaa ayaan u suuragelin inuu sii wato waxbarashadiisa waa isku dayay jaamacadii ugu horeeyay 2002 markii Soomaali loo soo yeegleelay dawlad ku meel gaar loo soo yeelay kadib ayaa jaamacadihii dib u furmeen marka waan isku dayay haddana dhaqaalaha ii diiday oo waxa aan soo galaa kama badnayn guri kiradiisa iyo biilkii caruurta iyo meherada kiradeedii iyo kama badnayn nasiib wanaagsi sanadkii 2015 ayuu helay fursad waxbarasho oo heerka koowaad ah kadib markii uu ilaystay ayuu ku biiray jaamacadda ummadda waxaan bilaabay public administration ayaan bilaabay ugu dambeynna waa ku guuleystay oo kadibna nasiib wanaag waxaan helay jaamacadda ummadda ilaahay waa ii saqiray ayadana haddaan ka qalin jabiyay sanadihii waxbarashadiisa jaamacadda wuxuu ahaa qofka ugu da'da weyn ee jaamacadda marka la eego heerka koowaad wuxuuna ardayda u ahaa tusaale ay uga daydaan hamiga tacliimeed ardayda arday fiican ahaayeen runtii ima aysan niyad jibinin marka si fiican way la dhaqmeen way la macaamilayeen horta iyaga dabcan sida aan dareemay ma aysan filaynin nin oday ah oo waalidkooda la mid ah inuu fasal la fariisanayo ma filaynin iyaga sida aniga aan dareemayay shucuurtooda aan ka dareemayay suuxii runtii ugu horeysay ee aan fasalka soo galay leeyahay fasalka ardayda aad la dhiganayso waatana ee aan imaaday ee aan salaamay aan iri waxbarashadu daa kuma xirna waxaan nahay isku galaas waxbaan isla baranaynaa runtii aad si farxad leh ii soo dhaweeyay markaan sidaas ku irin xirfadiisa dawarlanimo ma ahan mid ka hartay kumana shaqeeyo kaliya qoyskiisa ayuu u talaa dharka ay u baahan yihiin wuxuuna tababaraa jiilka soo koraya ee reerkiisa si ay xirfadan uga dhaxlaan runtii hadda kuma shaqeeyo laakiin guriga ay yaaliin harqaamadu wixii loo baahdo ee caruurta ayaan ugu sameeyaa teeda kalena cayaalkana waa tababar baan siiyaayo waa ku tababaraa si ay iyaguna u noqdaan xirfadlayaal wallaahi hadda qofkii ugu horeeyay wuxuu marayaa inuu tolo dirac inuu tolo inuu go' tolo ayuu marayaa hadda higsiga maxamed duqow ma ahan mid heerkan ku eg wuxuuna ku taamayaa inuu u sii gudbo heerarka xiga ee waxbarashada higsigaygii waxbarasho wuxuu ahaa heerka ugu sarreeya inaan ka gaaro master degree diyaariyo PhD diyaariyo laakiin hadda waxay iga dhigan tahay iridaan ka geli lahaa higsigayga
ayay iga dhigan tahay inay ii dhammaatay ee aan maanta diyaar u ahay inaan master bilaabo markaan dhameeyo haddii ilaahay yiraahdo haddana aan PhD ku xejiyo haddii aan helo marka nasiibkayga dad iga caawiya haddii aan helo haddii aan la idmo dadaalka miro dhalay ee sanado dhowra ku jiray maankiisa waxay tusaale nool u tahay in tacliintu tahay seeska qura ee go'aamiya horumarka qofeed